السلام عليكم markii aad dhahdo waan ku jeclahay waxaad balan ku sameynaysaa qofka qalbigiisa waa inaad u muujisaa ficil si aad u cadayso jacaylku ma ahan oo kaliya hadal la dhaho laakiin waa ficil wanaagsan jacaylku ma ahan dareen kaliya jacaylku waa daryeel jacaylku waa dareen ku baraya farxadda isla markaana muujinaya dabeecadaha kuwooda ugu wanaagsan kuwaas oo ku tusinaya macaanka noloshaada jacaylku wuxuu xambaarsan yahay naxariis wuxuuna keenaa isku dhawaansho iyo kalsooni soo ma arag markasta aad fiiriso qof aad jeceshahay wajigaaga waxa ka muuqda farxad iyo dhul cadayn jacaylku wuxuu macno qiimo u yeelan noloshaada haddii uusan jir lahayn jacayl waxay noqon lahayd nolosheena mid mugdi ah laakiin jacaylka ayaa ah waxa iftiiminaya nolosheena inaan ku noolaano jacayl waa arrin ku dhisan diinteena waxaad arkaysaa in badan ay diinteena nagu amartay inaan waalidiinta qaraabada xaaska caruurta deriska iyo dhammaan dadka noogu dhow jeclaano kuwaas oo ah sababaha ugu weyn ee aan ku galayno jannada inaan is jeclaano oo jacaylku uu noqdo mid dhaxdeena ku faafsan jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قيبتي لبات كوردو